waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ma aragtay murugadeeda leh xanuunkeeda leh waxaan horta marka ugu horeyso aan la qaybsanayaa murugada iyo xanuunka walaalahay reer Cabdi Doolar aniga shalay toole Nairobi shalay ciid u ahayd ee Soomaaliya shalay toole aniga Snapchat-kayga iyo Facebook-kayga iyo media-hayga ciid wanaagsan oo ku qoraayay ma aragteen anigu shalay ma ciidin sababtoo ah waxaan u ciidaynin oonan u ciidin waa baxay oo qadaan aado waa soo noqday laakiin ma ciidin mana idin la sheer garaynin ciid wanaagsanna idin ma dhihin sababtoo ah waqti aan farxo ma ii gelin mana ii ahayn xilli aan farxo Facebook-gayga waa ku soo qoray wiilka sawiradiisa waa soo dhigay waan ka hadlay qoraal ahaan laakiin waxaan ii sheeg ku mashquulsanayn ii sheeg lasti maanta waa arbacadii la soo dhaafay wiilkaas xamar lagu qashay arbacadii la soo dhaafay wiilkaas dhibaatadu ay gaartay ilaa arbacadii la soo dhaafay ilaa iyo shalay toole inta aanan qoraalka soo qorin waxaan isku talaagaraynay inaanan media-ba soo gelin oo wax allaala wixii aan xog hoos u raadi karno ama aan hoos u xallin karno inaan hoos u xallino ama aan wixii aan xog ah ama caawimaad oo hoos u raadi karno aan hoos u raadino arrintu waxay ka maarmi weysay in media-han soo galno way ka maarmi weysay in arrinta media-ha la dhigo oo cid allaale cidda ay qusayso loo sheego way ka maarmi weysay waxaa dhacday Shaafici Cabdi Doolar oo wiil yariisoo baby ah from Sweden ah inuu asaga iyo hooyadii ay ka tagaan Sweden waxay tageen magaalada Muqdisho wiil yar oo Soomaaliyeed oo from Sweden oo qurba joog ah horta qurba joog ay waa la idin soo galay waxa la yiri geeridii galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa geeda balaayada la yiraahdo markay adiga ka maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalka waxa thank you so much waxaan idin sheegaa waxa la yiri geeridii galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa balaaya intay adiga ka maqan tahay horta hore waxay ku maqan tahay cid kale asaga iyo hooyadiisa Sweden ka tagay xamar ay tageen wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisi aaday hadduu rabo xeeb ku dabaasho hadduu rabo meel ku raaxaysto ku dalxiiso Bambaaso oo imaan kara wuxuu tagi karaa Tanzania uu tagi karaa Mareykanku uu tagi karaa meeshuu rabo tagi karaa oo safe u ah wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisi xiiso iyo hilo oo u qaba dartiisa hooyadiisa raacay xamar tagay asagoo liida jooga nin ciidan sheeganaya waliba nisa ciidanka la dhahay inuu ka tirsan yahay la sheegay ayaa wiilkaas asaga iyo ninka iyo niman kale oo isla socday waa askari lagu leeyahay ninka oo wiilka afka la galay ciyaalkan qurba joogtaas u taqaanaan ba qurba joogta ciyaalka say wallahi si fiican u naqaanaa dadka dulmiya ma aha way murmeen markay murmeen uu iska kacay in Cabdi Doolar uu istaagay Shaafici uu iska dhaqaaqay inta loo soo istaagay lagu yiri waryaa see u dhaqaaqi kartaa say anagoo kula hadlaayo saa u dhaqaaqi kartaa waa iska taqaanin xamare waxay iska jecelihiin hadduu xataa uu dablayahay hadduu xataa uu taraafiga jidka taagan xamar oo yahay wuxuu jecel yahay talaya in loogu waco aniga xamar waa tagay laf talaya in loogu waco wuxuu sameeyay cunug yaraa uu tika daba tagay wuxuu yiri maxaad ii ignore garaynaysaa waryaa anoo kula hadlaay saad u kacdo yiri markaasuu warreeyo isma naqaano ismana fahmayna iga dhamow marka hore xabado iska soo jaray gacantu uga dhuftay kabacdina waa laga qabtay midida baynaada la dhaho oo ciidamadu ay xirtaan midida baynaada la dhaho oo inta qaatay halkaas uga bilaabo ilaa gumaarka ku geeyay beerku si dhaxmarsiiyay kaliyihiisi ma aragtay dhaawaca gaaray meel kasta caloosha waa aragtay si u tiran yahay Shaafici Cabdi Doolar wiilkii meesha ma aragtay dhibaatada ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abay telefoonka qoraalka ku soo dirsaday kiinaysi si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo informationkiisa waan raadinay ruuxaantii waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cid xukunta waan raadinay ninka dhibaatada geystay waxa la yiraahdaa ninka waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa iridda aeroboortka Marina Gate la dhaho Marina Gate la dhaho joogaa waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa iridda aeroboortka Marina Gate la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda waxa taliye u ah nin la dhaho Cabdiqani Jaale oo haysta iridaha aeroboortka oo dhan waa idinku soo celinaa informationadii aan helnay oo raadinay markuu wiilka isbitaalka galowkoomaha galay ninkii meesha waa ka cararay ee askariga ahaa informationadii aan raadinay oo familigu ay raadiyeen aan idin sheegayaa si fiican ii dhageysta ninka waxa la dhahaa wiilka qashay waxa la yiraahdaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa oo ka shaqeeyaa iridda aeroboortka Marina Gate qaybta la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda ciidamada nabad sugidda waxa taliye u ah Cabdiqani
jaalle oo haysta iridaha aeroboortka oo dhan okay markii Shaafici markii la qashay oo kooma galay waa arbacadii la soo dhaafay oo isbitaalka hooyadiis ay meeshii ma aragtay cid la ciirsalo ku noqotay oo cunugeeda isbitaalka maamada ay la gashay dad ehela ayaa damceen inay raadiyaan ninkii iyo informationkiisi waa lagu mashquulay waa la raadiyay ninkii waxa la soo ogaaday arbaco wiilka dilay khamiis binu iska shaqaysahay oo aeroboortka joogay okay ninba taliya oo marka xamar saa ogtiin hebelaw Cabdiqani Jaalle oo ninka taliyihiisa ahaan raadinay waa lagu mashquulay waa la raadiyay arrinta waa la wargeliyay waa loo sheegay waqtiga la geliyay wuxuu dhahay warqado soo samaysta anugu xamar dadka ayagoo dadka la qaso oo dadka la dilo haddana qofkii dhibanaha ahaa ee dacwada qabay in lagu dhaho inta soo mar xagga soo mar warqado soo samayso waxaan ku xirna keen dacwad soo furo adigu faamiliga waa dadaaleen intii tabartooda ahaa wixii marba warqad lagu xiro shalama daraada sheekadu soo gaartay ninkii aan la xiraynin